بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا وناكسن داود يال ملكستو aad joogtaan. halkani waa marqaati TV kusoo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena falanqeynta xogta caalamka. waa 2 bisha Maarso sanadka 2023. waxaanu barnaamijkeena daawadeel aynu ku eegi doonaa Ruushka oo ka hadlay daandaansiga nuclearka ee Ukraine xilli midowga Yurubna ay ka fiirsanayaan taageero dheeraad ah si ay rasaas u siiyaan Kiev iyo Zelensky oo xaqiijiyay gacan ku haynta dhammaan qeybaha hore ee Bakhmut. markale soo dhawaada daawada fadlan haddaad nagu cusubtahay nagu soo biir channelka subscribe inoo saar furo gambareerka si aad u noqoto daawadeena ugu horeeya mahadsanid. barnaamijka ayaynu gudagalaynaa. Ruushka ayaa ka digay in Ukraine ay heshay agab shucaac iyaga oo ku eedeeyay in ay isku diyaarinayso daandaansi nuclear ah. Moscow waxay sidoo kale ku dhawaaqday in ay fashilisay weerar ay ciidamada Ukraine ku qaadeen jasiiradda Crimea xilli ay dagaal ka socdeen Bakhmut. afayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee Ruushka Maria Zakharova ayaa war ay soo saartay ku sheegtay in 16 Febraayo konteenaro ay ku jiraan walxo shucaac ah laga keenay dhul ka mid ah wadamada Yurub iyada oo la geeyay dekedda lagu magacaabo Chornomorsk ee gobolka Odessa. bayaanka ayaa lagu sii sheegay in 19 Febraayo konteenaro la mid ah oo ay ku jiraan walxo shucaac ah ee Californium 252 oo si firfircoon loogu isticmaalo hubinta badbaadada reactors nuclearka ee dhirta tamarta nuclearka la geeyay dekedda Odessa. Maria Zakharova waxa ay sharaxday in la xaqiijiyay in alaab qeybiyaha walxahan shucaaca ah ay tahay shirkadda Mareykanka ee Frontier Technology Corp taas oo ka shaqeysa soo saarista konteenarada loogu talagalay isotopiska shucaaca gaar ahaan ilaha shucaaca ee neutronka. waxay tixraacday digniin hore oo wasaaradda difaaca Ruushka ah kuna saabsaneed in Ukraine ay isu diyaarinayso daandaansi nuclear ah oo looga gol leeyahay in lagu eedeeyo Moscow inay ku garaacday walxo shucaac ah oo khatar ah oo horseedi kara daadinta walxaha shucaaca iyo wasaqeynta gobolka. waxa ay sheegtay in macluumaadka ku saabsan daandaansiga nuclearka ee suurtagalka ah ay ka dhex guuxeen dadka reer Ukraine iyo sidoo kale dadka degan dalalka dariska la ah ee bariga Yurub. dhinaca kale ciidamada Ruushka ayaa ku dhawaaqay inay ka jawaabeen weerar culus oo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Ukraine ku qaadeen jasiiradda Crimea. afayeenka wasaaradda difaaca Ruushka Igor Konashenkov ayaa waxa uu sheegay in ciidamada dalkiisa ay ka hortageen weerar xoogan oo ay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Ukraine ku qaadeen xarumo ku yaala Crimea iyada oo aan khasaare naf iyo maal toona aanay jirin. waxa uu intaasi ku daray in nidaamyada difaaca hawada Ruushka ay soo rideen 6 diyaaradood Ukraine ah ee nooca weerarka ee aan duuliyaha lahayn isla markaana ay xakiyeen 4 kale oo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ah. weerarkan lagu qaaday Crimea ayaa kusoo beegmaya iyadoo ay sii xoogeysanayaan dagaalada ka socda jiida istiraatiijiga ah ee Bakhmut ee u dhaxeeya ciidamada Ukraine iyo maleeshiyaadka Wagner ee daacadda u ah Moscow. dhinaca kale iyadoo horumarka goobaha dagaalka uu sii kordhayo, Alexander Rodnyansky oo ah la taliyaha dhanka dhaqaalaha ee madaxweynaha Ukraine ayaa CNN u sheegay in laga yaabo in ciidamada dalkiisa ay ka baxaan Bakhmut. waxa uu si cad ugu yiri hadalkiisa ciidamada Ukraine dabcan way baran doonaan dhammaan fursadaha xitaa haddii loo baahdo si xeeladeysan ayay uga bixi doonaan dadkeena oo dhan u hurin mayno wax aan waxba ahayn. hadalka mas'uulka ka tirsan Ukraine ayaa ka hor imaanaya sida ay wasaaradda gaashaandhigga u shaacisay inay ka go'an tahay inay dib ula wareegto gacan ku haynta magaalada Bakhmut oo ay u dirto cutubyo militari oo dheeraada. madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa ku tilmaamay dagaaladii ka dhacay Bakhmut kuwii ugu adkaa isaga oo tilmaamay in Ruushku aanu haba yaraatee dan ka lahayn nolosha dagaalyahanadiisa uuna ku riixayo inay weeraraan aagaga ay ku sugan yihiin ciidamada waddanka Ukraine. dhinaca kalena haddii aynu eegno qaxootiga Poland, marka la eego heerka bini'aadanimada, Poland ayaa ku dhawaaqday in tirada dadka reer Ukraine ee soo galay dalkeeda tan iyo markii uu bilowday howlgalka militari Ruushka ee Ukraine 24 Febraayo 2022 ay kor u dhaafeen 10 milyan. ciidamada ilaalada xuduudaha Poland ayaa qoraal ay soo dhigeen Twitterka waxay ku sheegeen in Poland ay heshay mowjado qaxooti ah tan iyo bilowgii dagaalka Ruushka iyo Ukraine. midowga Yurub ayaa ka fiirsanaya in uu u qoondeeyo in ka badan $1 bilyan oo taageero dheeri ah si ay rasaas ugu siiso Ukraine dagaalka ka socda ee ka dhanka ah Ruushka tan iyo 24 Febraayo sanadkii hore. tallaabadan ayaa kusoo beegantay xilli madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky uu xaqiijiyay in ciidamada dalkiisa ay gacanta ku hayaan dhammaan qeybaha hore ee dagaalka ee magaalada istiraatiijiga Bakhmut saacado kadib markii hoggaanka militariga Ukraine uu ku dhawaaqay in ciidamada Ruushku ay kusoo wajahan yihiin meel u dhow magaaladaasi isla markaana ay bartilmaameedsanayeen
koox taageersan ciidamada Moscow oo qaaday weerar waaweyn. Dukumiintiga dheeriga ah ee soo jeedinta taageerada ee loo qaybiyay wadamada Midowga Yurub ayaa lagu sheegay in lacagta ay ka imaan doonto sanduuqa nabadda ee Yurub, kaas oo xitaa bixiya in ka badan 3.6 bilyan oo dollar oo lagu hubeeyo Ukraine tan iyo markii uu dagaalka bilowday. Wasiirada gaashaandhigga ee wadamada Midowga ayaa hindisahan kaga hadli doona shirka 7 iyo 8 Maarso ka dhici doona magaalada Stockholm. soo jeedinta Midowga Yurub ee cusub si ay uga qayb qaataan soo gudbinta amar weyn oo rasaas ah oo loogu talagalay Ukraine iyo sidoo kale in la buuxiyo saamiyada wadamada xubnaha ka ah. Dukumiintiga waxa uu sheegayaa in tani ay u diri doonto soo saarayaasha calaamad dalab cad oo awood u siinaysa inay kordhiyaan awoodooda wax soo saarka si habsami leh oo joogto ah Yurub oo dhan. Geesta kalena wasiirka arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken ayaa Arbacadii shaaca ka qaaday inaan qorshaha ugu jirin in uu la kulmo dhigiisa Ruushka iyo Shiinaha inta lagu guda jiro shirka wasiirada arrimaha dibadda ee G20 ee maanta oo Khamiis ka dhacaya New Delhi, xilli falka Ukraine iyo xiisadda ka taagan Shiinaha ay mugdi gelisay isku dayga India ee martida loo ahaa in la dhiso isfaham dhexmara wadamada ugu dhaqaalaha badan adduunka. Kulanka ayaa noqonaya kii ugu horeeyay oo ay saraakiisha Mareykanka iyo Ruushka ay hal qol ku wada kulmaan tan iyo shirkii G20 ee ka dhacay Bali bishii July ee la soo dhaafay. Mas'uulkan reer Mareykan ayaa sidoo kale xaqiijiyay in uusan qorsheynaynin in uu la kulmo dhigiisa Shiinaha kulanka labada maalmood ee G20 ee New Delhi. Blinken ayaa bishii hore kulan la qaatay diblomaasiga ugu sareeya Shiinaha Wang Yi isaga oo ku sugan dalka Jarmalka kadib markii Mareykanka uu soo riday boofin Shiinees ah oo maalmo dul wareegaya dhulkiisa oo ka baxsan xeebaha bari 4 Febraayo, wuxuuna sheegay inuu uga shakisan yahay in uljeed basaasnimo ah loogu talagalay. Dhacdadan ayaa ku kaliftay Blinken inuu baajiyo booqasho uu ku tagi lahaa Shiinaha isaga oo ku dhaleeceeyay tan inay tahay ku xadgudub aan la aqbali karin oo lagu sameeyay madax bannaanida Mareykanka iyo sharciga caalamiga ah, wuxuuna carabka ku adkeeyay inay tahay inaan dib dambe loogu celin. Aragtidaada daawada qaybta hoose commentiga nagu mahadsanid. Barnaamijka falanqaynta xogta caalamka ka daawanayseen Marqaati TV qaybta wanaagta barnaamijkan xigeentan ku kulmayna nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.